cabashadaas oo ay hawiye u soo gudbiyeen waxaana ka soo baxay shirkaas qodobadan soo socda. odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxay aqbaleen inuu sii socdo shirka looga tashanayo Shabeellada Hoose iyo maamulka Koonfur Galbeed, waxayna gobol u fidinayaan gobol nabadeed u fidinayaan beelaha dega Shabeellada Hoose oo dhan. waxay odayaasha dhaqanka beelaha hawiye cadeynayaan in aysan cabasho ka ahayn qabiil ee ay cabasho ka yihiin maamulka Koonfur Galbeed. odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxay ugu baaqayaan maamulka Koonfur Galbeed inuu joojiyo ciidamada uu ku soo daabulayo deegaanka Yaaqbare Weyne ee lagu beegsanayo beesha maanta gogosha dhigtay ee Gaaljecel Sanansoor. odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxa uu cuntami weysay imkaaniyaadkii iyo awoodii maamulkaas oo dhan in loo adeegsado beesha Gaaljecel. ugu dambeyntii odayaasha dhaqanka waxay ugu baaqayaan dawladda federaalka Soomaaliya inay arrintan soo faragelido. wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum warahmatullahi. dhibkaas Gaaljecel ay gogosha ka dhigeen waxaa qaba dhammaan dadka reer Shabeellada Hoose oo dhan oo xaquuqdoodii siyaasadeed la dafiray, midoodii horumarineed la dafiray, midoodii amnina la dafiray, oo colaad lagu dhex furay, oo canshuurtooda inta la qaato baydhabo looga dhisaa jidadkeeda interlock, afgooyana dhiiqada ayaan la dhex mari karin oo laga qaado lacagta interlogga looga dhiso baydhabo. colaadaas way wada dareemeen dadka reer Shabeellada Hoose oo dhan. talaana u socota waxay dhimanayd taladaas in hawiye ku soo biiro. hawiya ka maqnaa, hawiyow u diyaar garooba inaad talada ku biirtaan. lagu samata bixinayo gobolka Shabeellada Hoose, laguna doonayo xaquuqdiisa qofna lagu duuleen qofna lagu dulmayn. runtii dadka gogosha oo reer Shabeellada Hoose 10 jeer bay gogol dhigeen, 10 jeer bay codsadeen inuu hawiye taladaas kala qayb qaato. ay ka tashiga gobolka Shabeellada Hoose way diyaarsan yihiin, way joogaan. waxaa dhimanayd inaad ku soo biirtaan, hormuud ka noqotaan, aad wax ka shaqaysaan. umana baahna xoog iyo xoolo kale. ciddii mooday inay Shabeellada Hoose xuquuqdooda siyaasadeed iyo xuquuqdooda maaragtay deegaan iyo midooda amniba ayadu marooqsan kartaa, mugdi bay gudaysaa. dadkoo iska arkoo ka tashaday ku filan tahay. dadka deegaankoo iska arkoo ka tashaday ku filan tahay. dadkii kalena waa diyaarsan yihiin, waa idinkugu bishaaraynayaa. adinkuna ku soo biira, tallaabadaas si degdeg ah loo qaado. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi wakafaa. salaamullaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin dacalada adduunka meel walbo aad ka joogtaan. dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qarada weyn lahaw, mudanayaal iyo marwooyin, hawiye oo cadaystay madaah baa idinka saaran Soomaaliyay. marka 34 sano dawlad la'aan waxaan u ahayn in gobolka Shabeellada Hoose uu yahay gobolka ugu shacabka badan, gobolka Banaadir marka laga reebo, uguna khayraadka badan oo 91dii Caydiid uu gacanta u geliyay. balse laakiin maanta dadkiisu ay soo jeedaan yaa 32 sano kadib. Soomaaliyay cudurka maanta ma aragteen Soomaaliya. waxba yeenan eedin beelaha kale. yacni hawiye xuma iyo samaanba ku yahay hadda ma aragteen oo ma cadaystay. Maraykankana waa ka warrami doonaa iyo doorashada Soomaaliya. xasan sheekh maxamuud hadalkaasi ma jeclaysan doono, gadaal ayuu warkaasi inoo jiraa sirdoonka ee xasaasiga ah. balse laakiin waxaan doonaynaa inaan la xansaarno hadalka beesha hawiye. hawiye horta waxaa la idinka sugaayay haddii aad tiraadeen raxweyn xamar baan ka tarxiilaynaa, xasaanadan ka qaadaynaa xildhibaanadooda, guryahan ugu gelaynaa, waanu ku gubaynaa,
jawaabtii macnihii malaaqyada idinka sugaayeen ee ahayd malaaqyadu waxay idin dheen dagaal hal mar hawiye shab inaan isiinaan diyaar u nahay waa ka weecateen marka maxaad Ethiopia waa cadow maxaad ula haydeen Ethiopia maba u soconine shabeellada hoose kaliya u socoteen Ethiopiaanka macnihii dadka lagu mashquuliyo macal raxaweynta Ethiopian aan la dagaalamayna aan dhahno sidii maxaakiimta oo raxaweyn ah ku shaqaysateen ruumbadaasi iyo ma arkaysa macnihii musigaasi iyo durbaankaasi dig iyo damta shabeellada hoose ku qaata inta macnihii dadka wadaniyad beena aad u shidaan ujeedadina intaasay ahayd laakiin raxaweynka hore maahan raxaweynku wuu soo jeedaa hadda oo macnihii turubkiina waa uu bartay waayahay saacado badan kama soo wareeganin wadaniyadiina xaggee aaday aan noo sheegayseen wadaniyada aad inoogu sheekayseen xaggee aaday marka wadaniyadiinu isbaarada shabeellada hoose ay ahayd Soomaan shabeellada hoose aan banaadir ku daraynaa waay meeshaasi markay taagan tahay Xasan Sheekh Maxamuud kama dambeeya miya odayaashan meesha ay sidaan ka leeyihiin waa caasimadda Soomaaliya waa reerkiisii isagana madaxweyniye ah wariyaasha kale xataa haday hadlaan waa la xiraa ama waa la dilaa hadduusan ka raali ahayn isagu uusan ka dambaynin uusan fangaraynin dulmiga intaas leeg odayaashan hawiye isku soo bahaysteen hadduusan ka raali ahayn ma soo istaagi karaan waa maya marka Xasan Sheekh Maxamuudna waad aragteen hawiyena waad aragteen go'aankoodu waa mid shabeellada hoose inay goostaan raxaweyna dhulkeeda inta dhiman ay ku gumaystaan oo qaataan ama macnihii dawladnimo jirta dheh ama dabadhilif noqo ama ha noqonin warka waa uu cad yahay bur iyo biya loo kala baxay ama dhoob iyo dhaayo dhaha mayga laxamada ayaan marka halal u dul istaagaya horta hadalka markuu furaayay wuxuu yiri duubabka waa weyn ilaahay baa weyne gaal jecel baa asuumay oo gogosha dhigay haddaan hawiyanahay duubabka waa weyn ee hawiye ilaahay baa weyn horta odayaashan meesha taaganow ilaahay ma taqaanaan iyo weynadiisii isbaaro uma doodeen guri dad uma doodeen xaaraan uma aydan soo istaageen yacni dulmi idinkoo 70 jira ah iyo 70 jira uma soo istaageen horta ilaahay weynadiisa ma taqaanaan low ilaahay weynadiisa aad taqaanaan waxaan kuma aydan dhiiradeen oo labada mitir aad fiirinaysaan ee xisaabtii dambe taasi waa taas waxay yiraahdeen hawiyuhu gobolka shabeellada hoose ay ka tashigiisa ayaan samaynaynaa gogosha way taalaa dadka degan oo dhan ha ka soo qayb galaan way shabeellada hoose yaa degan Soomaali maanta ha baratee horta gobolkan waa meeqa degmo waa 8 degmo hawiyow 8 degmo ee gobolka shabeellada hoose hal degmo oo ka degan tahay ma jirtaa maxaad ku leedahay horta waad soo dhaqdhaqanaysaa yaa la cunaysaa maxaa kaa galay shabeellada hoose maxaa ku yaala adinka iyo annaga xamara naga dhaxaysa iyo diinta ilaahay iyo afkaasi Soomaaliga haddii la wanaajiyo haddii la xumeeyana isku af ma banihinba haddii la xumeeyana isku diin ma nihin maxaa yeelay annaga diinteenna dhaca iyo dilka wixii ilaahay uu xaarantinimeeyay ma ogola laakiin adinku wixii diinta ay banaysay baad u taagantiin idinkoo gar gaduudan iyo gar cad leh marka sidaa awgeed isku diinna ma banihinba kala diinaan nahay diinteenna kufsiga ma ogola annaga haddaan nahay Mayland oo diinteenna ma ogola dulmiga oo diinteenna ma ogola in dad lagu duulo gobollo dad kuma duulin oo diinteenna ma ogola dulmiga oo diinteenna ma ogola isbaarada oo diinteenna ma ogola macnii kufsiga macnii rag iyo dumarba dhaca ma ogola dhiigga bani aadamka in la qubo ma ogola laakiin adinka diintiina way ogoshahay marka diintii xaniifka Ibrahim alayhi salaam lagu soo dajiyay Nabi Maxamed ayaan wadanaa annaga idinkuna macnihi waad ka talaabsateen marka isku diin ma nihin ciddii ila waasteyn kartana maanta waa rabaa isku diin ma nihin isku afna ma nihin qodobkaas isaga ah waanu garanay
sideedda soomaaliyay markhaati ahaada meeshaan madaxyo badan oo qoyan way qalali doonaan laakiin taariikh baan ka tegaynaa sideedda degmo ee gobolka shabeellada hoose hawiye hadduu wax ku leeyahay isagoo 30 iyo dhowr sano